waxa ay ku dadaalayaan in ay nolosha caadi ku soo celiyaan qaraxii kadib. waxaa dib loo dhisayaa qaybo ka mid ah waddada si isu socodka loo fududeeyo. waxa ayna dirayaan fariin ah ma aanan quusan, noloshuna waa ay sii soconaysaa. ku dhowaad 300 oo qof oo Soomaali ah ayaa halkan ku dhintay. muddo 5 maalin ah kadib, dowladda Soomaaliya waxay dib u dayactiraysaa burburkii soo gaaray waddada. ganacsataduna dhankooda waxay dhisanayaan guryahoodii ku burburay qaraxa. mas-uuliyiinta dowladduna waxa ay sidan u arkaan qaab ka mid ah qaababka ay doonayaan in ay shabaab kula dagaalamaan. waxay diraysaa runtii horta marka ugu horeysa wax la yiraahdo adkaysi ama resilience. waxay diraysaa inaan niyad jabin. waxay diraysaa jawaab waxay u tahay ummadda Soomaaliyeed oo noo soo gurmatay meel kasta ay joogaan, dhalinyarada gaar ahaan oo noo soo wada gurmadeen kulligood. beesha caalamka noo soo gurmatay in Muqdisho aysan niyad jabin, shacabkeeda inaysan niyad jabin, in rajo ay nagu jirto. taa ayaa jawaab waxay u tahay nama hakin karaan horumarka aan wadno, isla markaasna dhibaato dambe inay noo geystaanna waan ka taxadiri doonaa, waan iskaashan doonaa. qaar ka mid ah dhismayaasha ayaa dayactir lagu bilaabay. ganacsataduna halkan waxa ay rajaynayaan in aanay dib u soo laaban wixii dhacay. khasaaraha guriga soo gaaray waa khasaare hadda la sheegi karin, xisaabtii weli isku maqannahay. laakiin waxaan bilownay saa u jeedid dib u haween bulkeeti saarow meeshii naga jabsaday inaan tartiib u samaysano. waa insha Allah bil dhexdeeda shaqada waa dhamaanaysaa. laakiin waxaan ka aad uga xunnahay dadka ku dhintay iyo dadka ku baaba'ay. marka arrintan oo kale ay dhacdo, ganacsatada waxay isku dayaan in dubroodiga ganacsiga dabcan runtii ay dib u aasasaan. ayagoo shalay dabcan bilaaway durbadii way bilaaween dhismooyinka qaar hadda kuma muuqdo, dib u dhis ayaa laga bilaaway. waxaad u malaysaa inay u diyaarsan yihiin in markay masiibo noocan oo kale ay dhacdo aysan niyad jabin, waxay ka sii qaadaan dhiiranaan, wayna sii wadaan howlahooda shaqo inta badan. burburka ka dhashay qaraxa oo xooganaa ayaa waxa uu gebi ahaanba dhulka la simay dhismayaashii ganacsi iyo kuwa hay-adeed oo waddadan ku yaalay. walow uu iminka dayactirku bilowday, haddana muddo dheer ayay qaadan kartaa in sidii hore ay wax waliba ku soo laabtaan. cali nuur salaad, BBC, Muqdisho.